dadkii hore waxay u yaqiineen dastuur markii la yiraahdo adabta iyo asluubta ay u yaqiineen laakiin casriga kan waxaa loola jeedaa dastuur waa heshiis wadareed ay bulshadu ayada isla gelayso oo ay ballan qaadayso in ay ixtiraamto oo ay fuliso kuna kala dambeeyaan dadweynaha Soomaaliyeed baa wax qoranayo oo oranaya ka saara ka ku dara ka saara ka ku dara annagu 30 qof baanu ka koobannahay waxa la shaqeeyo ilaa dhowr iyo 20 qof oo kale oo Soomaali ah oo aqoon-yahan ah oo la taliyayaal ah waxa ka mid ah shaqaalaha la shaqeeyo hay'ado la yiraahdo consortium oo ajnabi ah مثل Max Planck oo kale NDI oo nagala taliya waxyaalo badan oo annagu aan gabsanayn culama diin Soomaaliyeed oo xataa dad Kenya ku dhashay baa jooga kuwa Carbeed baa noo yimaada kuwa Malaysia ka yimaada noo yimaada waxaas oo dhan waxaan u ururinaynaa oo aan isugu geegeynay inaan horta bal qabiil qoraalkii duqsadkiisu ugu horeysay dadka soo hordhigay cidda wax qoraysa waa dadka ee annaga ma aha dastuur waa laga maarmaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waqtigan xaadirka in dastuur nidaamkeedii iyo hay'adeedii iyo sharafteedii dawladnimo u soo celiyo inay hesho waa laga maarmaan waxa muhiim ah in horta la isweydiiyo ninkan banaanka soo baxay qaxootiga ah maxaa keenay in dalkiisa hooyo uu ka soo cararo Soomaali inay heshiiso dawlad noqoto dastuur samaysto maxaa ka qabtaan waa waxaan doonaynaa in dalka ay ku noqdo Soomaali inay heshiiso nabadgelyo ay wadanka noqdo kala dambeyn iyo sharci la sameeyo nin wal meesha uu ku noolaayo gurigiisa iyo hawlihiisa qabso danihiisa tago sharci dadka kala hagi karaan la helo federasyonuhu waa mid kaliye ay u tahay albaab oo lagu gaari karo nabadda alxamdulillah rabbil aalamiin ninkii soo fikiray ilaahay khayr ha siiyo maxaa kamid ah dhibaatooyinka aad u aragto adiga in xilligan dawladda federaal ama dawlad federaal aanay ka shaqayn karin Soomaaliya kama shaqayn karto way waxaan nahay walaal inagu waxaan Soomaalihan markaan sheegno waxaynu nahay walaal dad qabiil ku dhisan baan nahay waxana waxaan inagu fahmaynana maaha wax inagu aan ma garanaysaa shaqo ku lehna waa wax aan ka soo guurinayno dawlado kale oo shisheeye oo iyagu waxaan yaqaano waa waxa iyagu ay dhistaan waxaan isleeyahay dastuur in la qoro waxa ka horeysa horta dalkii loo qoray ama deegaanadii ama loo qoray in guddigu tago oo la weydiiyo shacbigu horta maxay rabaan nidaamkan federaalka oo ka cusub yahay Soomaalida hore uma soo marin halka Soomaaliya waxa moodaa inuu markii meelo badan la aaday oo shirar badan la aaday inuu jiro in la sameeyo nidaam federaali kaasoo ay ka muuqato sida hadda federaaligu uga hana qaadayo ee dawlad goboleedka Puntland waa tayaarinta Cabdullaahi ka dhawaajiyay say kuugu muuqataa waa arin Cabdullaahi arintiisu waa arin aad tixgelin u leh dastuurka waxaan u arkaa horta haddii laga gudbay 4.5 aad ayaan ugu farxay oo dastuurka la soo saaray waana la socdaa telefishinada waa fiirsadaa laakiin haddaan anigu iraahdo buuggaasaan qoray ee aanan buuggiina ku dhaqmin dhibaatadeeda leedahay maya absolutely uma baahna waxay u baahan tahay dawlad dhexe oo islaamiya oo dadka Soomaaliyeed waxa kaliya isku keeni kara waa diinta islaamka federaal hadiiba lugta lala galo waxa lugta lala galayaa dagaal labaad haddaba hadii la yiraahdo dagaal baa Soomaaliya ka jira sidoo ninka ka horeeyay uu yiri madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii baa isaysta wax lagu kala saarana lama hayo okay atarfudu وتقر في الوقت نفسه مش هو أقول لي هذا قفك سومالي هذا أنا وديدي فكيف هل ميسكو عيارنا مركا لبدين الدولة دقوس الريح واحد لقوك على صار لما هيو دستور كي نوحيه سمين تيسي أنا لا أفهم قفك سومالي كيسو فكر أيو ما فهم كراخي هدي كم مكان تهاي الدولة إن الدولة إسلامية تهاي definition الدولة فدرالك إن تهاي الدولة إسلامية in definition كذا خاصة شعلان لي نضوي ومهم إن لقوا نقضوا شريعة إسلام كوطن كلقوا نقضوا هذه إنه في عنده هاي